السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. sidee looga dhigaa Google Chrome default browser? browserka waxaa laga yaabaa computerkaaga dhowr browser inay ku jiraan sida Google Chrome, Internet Explorer ama Firefox. Marka waxaad rabtaa in aad ka dhigto Google Chrome browserka defaultka ku ah oo markastoo internetka aad furanayso in uu asagu kugu furmo. Also sidee looga dhigaa loo muujiyaa index.html haddii extensionka html uu kuusoo bixi waayo iyadana sidee loo muujiyaa loo soo saaraa. waa laba su'aalood oo dhowr qof isoo weydiiyeen oo su'aalahaas oo ka yimi casharkeennii ama videogii ahaa html Soomaali casharkii koowaad waa videogii title-kiisu ama ciwaanku ahaa html koorso dhammaystiran oo af Soomaali ah oo videogii 48 minute-ka ahaa ka dhowr qof ay soo weydiiyey oo yiri Google Chrome default nooma aha sida looga dhigaa ama calaamadii Google Chrome noomay noo soo bixi mayso. Also file-kii aanu desktop-ka ku sameynay ee aanu bixinay index.html HTML extension-kaas nooma soo baxayso iyadana sida loo xalliyaa. Marka videogan intaas ku saabsan yahay waa video yar oo kooban baahidaas keentay kama mid aha koorsadeennii. Marka insha Allah dhowrka qof aynu caawino. Let's do it. aan tagno file-keennii folder-kii desktop-ka aynu ku sameynay. waan ka qaaday waan bedelay markii hore Google Chrome buu ahaa si aan isula jaan qaadno waxaan ka dhigay Internet Explorer sida arki kartaan calaamadii Internet Explorer bay saaran .html-kana waa ka maqantay meesha. marka waxaan rabaa Google Chrome inaan default browser ka dhigto .html-kana soo saaro. waxay ii soo deji si aan Google Chrome default uga dhigo ama dhowr qaab baa looga dhigi karaa. waxaad samayn kartaa file-ka laftiisa Internet Explorer-ka ku ah ama Firefox ku ah right click hadaad siiso oo aad tagto open with then aad ka doorato Google Chrome waad arki kartaa Google Chrome buu kugu furmayaa. iska soo xidh. waa ujeedada laga leeyahay waa inuu Google Chrome kugu furmo oo wuxuu doono noqon karaa dhib ma laha. waxaad kaloo samayn kartaa right click intaad siiso ayaa waxaad tegi kartaa properties halka ugu hooseysa then waxaad tegaysaa Internet Explorer-ka halka ka horeysay change ku qoran tahay. change markaad ku dhufato menu-gun kuu soo saaraya markaa ka doono waxaad ka dooran kartaa Google Chrome. marka okay dheh haddana apply dheh and then okay dheh. marka waa aragtan uu isbedelay. waxaa laga yaabaa weli inaanu default ku ahayn laakiin mar walba saas ku ahaanaya oo kugu soo baxaya Internet Explorer. marka waxay naga maqan index.html-ka waa naga maqan ka dambeysay dot-ka. iyadana si aad u soo saarto aad u muujiso waxaad tegaysaa halka kor ay view ku qoran tahay. aan idin calaamadiyo waa halkaas view ay ku qoran tahay. view ku dhufo waxaad tagtaa dhanka midigta halka ay ku qoran tahay file name extensions waa halka view tag dan waxaad tegaysaa halka ay ku qoran tahay file name extensions. aan idin calaamadiyo waa boxka yar iminka tick ma saarna ciladuna halkaasay ka timi marka waa inaad saartaa tigta calaamadeeda tigta saar. file name extension marka calaamada tigta saar asuna saad saarto ku soo noqo file-keennii oo checkgare markiiba waxaad arkaysaa in .html ay ku soo baxday. qaabkana ugu sahlan baan u malaynaya ugu fudud oo dhammaan wada fahmi kartaan. waxaad kala samayn kartaa inoo soo deji Windows 10 haddaad isticmaalayso Windows-ka imika computerka aniga igu jira waa Windows 10. haddii aad tagto halka ugu hooseysa ama left bottom corner-ka waa halkaas hal mar click gare then waxaad tagtaa setting. waxaad tagaysaa setting oo halkaas waa gearka yar. setting-ka hal mar ku dhufo halkan ku keenayaa dhowr option ba ku jira. marka waxaad doorataa halka ay ku qoran tahay apps oo halkaas
apps-ka ku dhufo menuguna ku furayaa dhanka leftiga waxaad ka doorataa halka ku qoran tahay default apps waa halkaas halka hal mar ku dhufo dan waxaad tagaysaa dhanka midigta waxaad raadisaa web browser waa halkaas aniga imika waxaan ka dhigay internet explorer ba default ah adigana waa laga yaabaa in internet explorer uu default ku yahay ama Firefox waana sababta uu Google Chrome uu kugu soo bixi waaye markii hore marka ku dhufo hal mar menugana ku soo saaraya waxaad ka dooranaysaa marka browserka aad rabto inuu default ku noqdo marka waxaan rabnaa Google Chrome baad ku dhufanaysaa marka that's it marka iska xid filekeena inoo fur idan waa taas index.html ku soo baxday Google Chrome calaamadiisina ku soo baxday marka it's really simple oo wax soo si adag maaha laakiin haddii kugu cusubto laga yaabaa inaad keeni weydo oo kugu adkaato hal mar aan ku celiyo halkii .html extension kaas sida loo soo saaro waxa tagtaa halka kor ay ku qorantay view hal mar ku dhufo waxa tagaysaa dhanka midigta halka ku qorantay file name extension haddii calaamada tigto aan saarneen calaamada tigta saaraysaa marka fiidagun waa fiideo kooban intaas waxaan rabaa baahida dhowr qof ka tim inaan ku xalino koorsadeena kama mid aha aad baan idin salaamayaa insha Allah channelku cusub yahay si faafiya hadii la yiraahdo wixii kala fahmi weydaan insha Allah comment-ka igu soo sheega assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh